howlaha nadaafadeed ee laga bilaabay degmooyinka xamar jajab iyo waabari gobolka banaadir ayaa waxa ay qayb ka yihiin olole nadaafadeed ee ka bilaabmay guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna ka mid yahay barnaamijka isxilqaan ee loogu talagalay in loogu qayb qaato horumarinta bilic soo celinta degmooyinka gobolka banaadir waxaana degmooyinka xamar jajab iyo waabari uu ka socon doonaa ololaha nadaafadeed muddo isbuuca howlaha nadaafadda ayaa waxaa ka qayb qaadanayay gaadiidka lagu qaado qashinka iyo katarabiilo loogu talagalay in lagu xaaqo qashinka gudoomiyaha degmada waabari ee gobolka banaadir mahad cilmi cali ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed ee ka bilaabmay degmada waabari ee gobolka banaadir wuxuuna baaq u diray dadka biyaha wasakhda ah iyo qashinka ku soo daadinaya wadada laamiga ah inay joojiyaan ciddii lagu helana la ganaaxi doono runtii waa run xaafadaha gaar ahaan waaxda hanti wadaag waxaa ka dhaca in biyo laga soo daayo meelaha qaar dabadeedna ay biyahaasi u soo degaan laamiga weyn laamigii oo hadda la dhisay dayactir lagu sameeyey inuu go'ay ayaa dhashay meelaha qaar ka dhacay waxaan ku wargelinaynaa dadkaasi ayagoo u danaynaya bulshada waddadii marinka ahayd nadaafadii caafimaadka inaysan biyo soo dayn ciddii biyaha soo daysa qorshaan ka samaynay muddo dheer aan ku jirnay researchkaas inaan samayno qorshahan ka samayno waxay tahay shirkadaha biyaha ee siiya xaafadahaas biyaha waxaan ku wargelin doonaa inay biyaha ka gooyaan qoyskaasna biyo ma heli doona hadda ka bacdi biyaha laga goyn doonaa ganaaxna waa lagu darayaa qoyskii biyo soo daaya sababtii waxa weeye nadaafadii bulshada ku cayaaray badqabkii wadadii oo bulshada dhan marayso ku cayaaray gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir cali cabdulqaadir faarax ayaa ka hadlay howlaha nadaafadeed ee ka bilaabmay degmada xamar jajab nadaafad degmada boqolkiiba boqol waaye hal meel caqabad ka qabnaa meesha caqabada ay naga haysato waxay tahay shirkadda u shaqayso dadka oo aan ku filnayn shaqadii loo baahnaa u haynin dadkii oo jidadka qaar qashinka iska soo dhigay wadadan waxa ku qornaan jiray shaqaalaha dawladda hoose shaqaalaha nadaafadda dawladda hoose ku qornaan jiray waxa loo wareejiyay wadadaas kale ee fiya Uganda loo wareejiyay caqabadeedu wali waa taagan tahay laakiin annaga maalin walba waa xooggan saarnaa sidii aan ku nadiifin lahayn culays kale waxaa jira oo jidkan aan nadaafadiisa boqolkiiba boqol aan looga dhigi karin culayskaasna waxaa gaadiidka waaweyn ee dekada galo oo habeenkii soo dhiga jidka markii aan naga shaqada ka baxna kadibna qashinkii ay noo qariyeen haddana ku laba noqonaa agaasimaha waaxda nadaafadda maamulka gobolka banaadir cabdicasiis goodax barre ayaa sheegay in waaxda nadaafadda maamulka gobolka banaadir ay qayb weyn ka qaadan doonto howlaha nadaafadda ee lagu soo celinayo bilicda degmooyinka gobolka banaadir waaxda nadaafadda waxay dhiirigelisaa oo ay maaragtay mar walba garab taagan tahay gudoomiyihii degmo ee maaragtay degmadiisa raba inuu bilicdiisa kor u soo qaado raba shacabkiisa inuu la shaqeeyo waxna u qabto marka gudoomiyaha degmada waabari waad la socotaan isbuucii la soo dhaafay warta nabadaan joognay haddana degmada waabari aan anaga la joognaa isbuucan oo dhanna ilaa khamiista laga gaarayo hadduu ilaahay yiraahdo degmada waabari gudoomiyaheeda waa la shaqaynaynaa muuse cismaan abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho